munaasabadda xiritaanka bandhigga caalamiga ee buugaagta oo muddo 3 cisho ka socday magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay hotel Casuur ee magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay marti sharaf aqoon-yahan abwaano madax dhaqameed maamulka heer gobol iyo heer degmo bandhigga buugaagta oo ahaa kii u horeeyay lagu qabtay magaalada Laascaanood kaasoo ay hirgelisay hay'adda wadaniga SVO ayaa soo jiitay indhaha bulshada dal iyo dibadba waxaana xusid mudan bandhiggan inuu qayb ka ahaayeen hidaha iyo dhaqanka gamaanka fardaha dalagga beeraha oo dhammaan ka dhex muuqday bandhiggaasi ugu horreynna munaasabadda xiritaanka ayaa waxaa ka hadlay waxgarad abwaano mas'uuliyiin iyo martidii ka soo qayb gashay loogu talagalay xiritaankii intaas Soomaali degto inta ka timi ee joogaysa ee maxaa ku iraahdaa ilaa degmooyinka tagaysa diyaar baan u nahay ilaa iyagu ay ka xiisa tabayaan intii tagaysana waanu nabad gelinaynaa oo waanu macal salaamaynaynaa haddii ilaahayd mo bilad qaata reer Sool waqtigan beeraad ma lehe aniguna bariidiya salaan buuxda u diray sida buugag loo qoro tayo leh balan isweydiino Abdikariin hal yeybaatihi iyo hanadkii Soomaali hooda u leedahay ninimo waana la hubaaye sida geed har weyn bay nafluhu kugu hirtaanine waa ku haweyn tahay bulshadu heer kastay tahay anigu waa markii koobaad ee aan Laascaanood iyo gobolka Sool imaado waxaan la kulmay dad wanaagsan iyo dal wanaagsan iyo bulsho isku duuban oo soo dhaweyn wacan oo qalbi xaaran markaan waxaan soo doonay malaa wixii la sheegay waxay ahaydun dhurwaa iyo carruur loo kala sheekeeyay dhexdooda colaadimo marin waa kala aad ugu mahadnaqaya oo abwaan xasan burco oo mursidhaadhe cilmi baaraha reer burco oo noo sheegay 6 qodob oo Laascaanood ka duwan tahay magaalooyin kale tii ugu horeysa kaliya idinka sheegaya mid waa SVO iyo Abdikariin mid waa labada gudoomiye degmada maayarka iyo barasaabka Abdulcasiis iyo Abdulqani nimada ka haystaan bay ka mid yihiin buuleeyahay hees yaroo kooban oo aan kaga hadlayo wixii dhacay baan soo sheegaya ayaa weyn weeye maanta waxaa aqalkeena jooga abwaaniyo waa qoraayo aqoonyahan aynigoodba anfaaci ilmaha ku meersan oo SVO bay isu keentay bandhigyada oo la qabto waxa ay sidaan isdhexgalka oo bulshada isbarashada iyo waliba nabadeynta gudoomiyaha hay'adda wadaniga SVO Abdikariin Saciid oo Cabdi iyo madaxa qabanqaabada Ahmed Sool ayaa ka mahad celiyay cid ka soo ka qayb qaadatay waxayna ballan qaadeen inay joogteen doonaan bandhiggaasi alxamdulillaah rabbil caalamiin fikir nugu jiray baa rumoobay oo ilaahay iyadoo runa uu na tusay marka shucuurteeda aad u kacsan oo hadalladiiba dee maba kala xasuusan karo laakiinse waxaan rabaa halkan inaan in yar oo ma garanaysaa mahadnaqa dadkii hawshan nala qabtay iyo dadkii hawshan keligay maanu qaban run baan idiin sheegaynaa Abdikariin hawshan ma qaban SVO hawshan ma qaban haddaan marka koowaad ilaahay hawshan nala qaban marka labaadna aanu bulshada iyo cid kasta aanan gacan ka helin hawshan qabashadeeda nooma suurto gasheen ood ogtihiin samafale Abdikariin Saciid oo Cabdi uu ku mahadsan yahay inuu ku dhiiraday arrintaas nana waxaan ahayn ka timid Sool ahaan dhammaan ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya ee gobolka kuwaas oo u midoobay in ay qabanqaabiyaan fuliyaanna barnaamijkan garaad jaamac Ismaaciil Ducaale ayaa dhankiisa soo dhaweeyay qabsamada carruurta bandhigga buugaagta iyo dhaqanka waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladdan buug feerka ah ee dalka dibadiisa ka timi ee gudaha Soomaaliya iyo inta af Soomaaliya ku hadasha ka timi iyagana si gaar ah ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa hadday xukuumadda tahay oo madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha reer Laascaanood ama gobolka Sool ama reer Boohoodla gobolka Cayna ama Xaysimo ama Sanaag sida wanaagsan ee qiimaha leh ee gobonimada leh ee sharafta leh ay u soo dhaweeyeen wafuudda faraha badan ee dunida dacaladeeda ka timi waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin
waana gobonimadii iyo sharaftii iyo dhaqankii aad lahaydeen weey waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa saxaafadda oo runtii ah laf-dhabarta weyn ee mar walba waxa weeye meesha ay doontana qiimaheeda iyo sharafteeda kor u qaada meesha waxa weeye ay doontana hoos u dhigta sida maayarka degmada laascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa ku dheeraaday ahmiyadda bandhigan uu leeyahay gobolka iyo degmada haddaan nahay golaha deegaanka iyo xogayaha dowladda hoose iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose isku duuban in magaalada laascaanood iyo 22 xildhibaan ee golaha deegaanka waxa farxad weyn oo saayida oo aad iyo aad noo ah in magaalada laascaanood ee wakiilkan ka ahayn lagu qabto buug feerkii laascaanood waxaan mar saddexaad iyo mar afraad baan doonaynaa isu kaashano inaynu horumarka gobolka ka shaqeyno annagu astaan baan leenahay astaantan leenahay waxa weeye nabad iyo horumar in gobolkani gaadho marka taa inaad mar walba inagala shaqeysaan oo deegaanka inagala shaqeysaan hay'adda SVO waxay la tahay badan waa laga soo hadlay waqti badanna way qaadatay time badanna ugu dambeyntiina gudoomiyaha hay'adda SVO ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay mas'uuliyiintii iyo howlwadeennadii ka qayb qaatay